waxaan gacanta ku hayaa mid ka mid ah saacadaha loogu talagalay dadka jeebkooda uu seere eeda yahay. Haddii aad taqaan qof jeebkiisa uu seere ee yahay, halkan hoose ugu yeer oo waxaad dhahdaa jeebkaagu waa seere ee, saacadanna waa taadi. Saacadan oo ah Samsung Galaxy Watch 8 Classic ayaan rabaa inaan ku tusiyo featureskeeda, awoodaheeda, naqshadeeda, siday u samaysan tahay iyo waxay uga duwan tahay saacadihii hore ee Samsung Watcheska ahaa. Dabcan saacadan naqshadeeda wax yar ayay kuwii hore ka duwan tahay, xagga suunka waxbay ka duwan tahay, laakiin waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo in saacadan iyo dhammaan saacado kala duwan oo qiimahooda uu kala sasareeyo kalana hooseeyo aad ka heli karto Sanguni Electronics. Aan gudaha u galo saacadan kofarka ama qolofkana ka saaro. Saacadda markaad furto halkan waxaa ku jira jaajarkeeda oo magnet ah, iyada oo gaar ahna sida ay u soo baxaysaa. Sidoo kale xagga hoosena waxaa ku jira suunkeeda oo dabcan mid ka mid ah waxyaabaha saacadan ay xiisaha ku leedahay ay tahay. Intaan marka gudaha u gelin suunka iyo sida loo xiro, waxaan rabaa inaan ku tusiyo oo aan kaaga sheekeeyo saacadan naqshadeeda. Saacadan markaad xagga sare ka fiiriso, waxaad u malaynaysaa inay laba dabaq ka samaysan tahay. Dabaqa koobaad oo wareeg ahaan u samaysan iyo dabaqa labaad oon wareegna ahayn, square-na ahayn, laakiin geesaha rounded ka ah ama geesaha ay ka wareegsan tahay. Halkan 3 batan ay ku leedahay, laakiin waxaa xiiso leh in halkan bezelka wareegan kore uu yahay wareeg wareegsanayo oo dabcan xiiso leh markaad isticmaalayso. Waxyaabaha saacadan xiisaha u yeelayana ay ka mid tahay. Saacadan geesaheeda waxay ka samaysan tahay bir stainless steel ah oo aan taxalaysanaynin oo dhalaalaysa. Saacadan waxyaabaha ay uga duwan tahay saacadihii hore waxaa ka mid ah in qaabka suunka uu u xirmayo ay ka duwan tahay kuwii hore oo naqshada cusub ay u soo sameeyeen. Halkan geesaha 2 batan ayaa loo soo sameeyey oo marka aad rabto inaad furto batanka ayaad riixaysaa, kadibna suunka ayaad sidaa uga saaraysaa. Laakiin markaad gelinayso uma baahnid inaad riixdo oo sidaa ayay ku xiran tahay. Waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego saacadan waxaa ku jira applicationo tiro badan. Waxay xataa leedahay AI oo Gemini ayaad wax ka weydiin kartaa. Laakiin featureskeeda iyo qaabka aad u isticmaali karto Gemini-ga saacadda way xadidan tahay oo sida telefoonka kale wax badan aad weydiin karto, sawirro badan kuu soo saari karto, kuu generate garayn karto kale ma ahan. Laakiin waxyaabo fudud oo qoraala ayaad weydiin kartaa. Softwarekeeda waxa uu ku samaysan yahay Android Wear OS 6, sidoo kalena UI-ga uu wato waa latest version oo Samsung ka yimid oo ah UI 8 ama One UI 8 Watch oo saacadaha loogu talagalay. Midka telefoonada hore ayaan uga hadlay dabcan. Saacadan waxay leedahay adkaysiga biyaha iyo boorka nooca ugu fiican oo ah IP68 oo ilaa iyo 50 mitir gunta biyaha hoosteeda ay u dulqaadan kartaa cadaadis ahaan. Saacadan waxay leedahay speaker fiican oo cod fiican aad ka maqli karto oo kugu hagaysa hadba marka aad exercise wato ama dhaqdhaqaaq kale ay rabto in ay kugu ogeysiiso. Tayada screen-ka ama shaashadda ee saacadan waa Super AMOLED, cabirkeeduna waa 43 inch oo xoogaa way yar weyn tahay inkastoo aysan aad u weynayn. Sidoo kale GB-geeda waxa uu ku yimaadaa 64 GB oo kaydka gudaha ah oo aad wax ku kaydsan karto. Tusaale ahaan codad aad wax ku dhageysan lahayd, watch faceska laftirkooda, sawirro iyo muuqaalo iyo waxyaabahaas oo kale aad ku isticmaali karto. RAM-keeduna waa 2 GB oo gow ah, sidoo kalena 445 mAh oo battery ay leedahay. Dabcan 445 mAh markii loo fiiriyo saacadaha waa dabcan battery weyn, laakiin aanan u weynayn. Markaad sidaa u qaadana waxaad u malaynaysaa wax yar inay culus tahay oo saacadaha kale ee caadiga ay ka yara culus tahay. Ugu dambeyntii marka saacadan waxyaabaha aan ku jeclaada waxaa ka mid ah face watches tiro badan oo applicationka Samsungka ama Samsung Watchka aad ka heli karto ay leedahay. Ugu dambeyntii sideed u aragtaa saacadan, maxay kula tahay fikirkaaga? Nagu reeb qaybta hoose ee faalooyinka. Anigoo kaa mahad celina waqtiga qiimiga badan ku bixisa daawashada muuqaalkan. Ha ilaawin inaad muuqaalkan jacayl u reebto, nagu soo biirto, ugu dambeyntiina muuqaalkan aad la wadaagto saaxiibaad is leedahay waa ay anfacaysaa saacadda. Inta laga gaaray muuqaalka xibaidankii nabadgelyo.